xayawaankii ugu horeeyay oo laga helay cudurka adduunka ku sii faafaya. dalka Mareykanka waxaa cudurka coronavirus laga helay shabeelkaani dhedig ah oo da'diisa lagu sheegay 4 sano ayaa inta la ogyahay noqonaya xayawaankii ugu horeeyay ee laga hela cudurka COVID-19 ee aadanaha ku dhaca. saraakiisha beerta lagu xanaaneeyo duurjoogta ee ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa waxay sheegeen in baaritaankaani lagu xaqiijiyay sheybaar ku yaala loba, naadiya iyo 6 xayawaan oo kale ayaa la rumaysan yahay in cudurkaani ay ka qaadeen mid kamid ah ilaalada duurjoogta. shabeelkaani ayaa lagu arkay calaamadaha cudurka sida qufac qalalan dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay. waa markii ugu horeysay guud ahaan caalamka ee la ogaaday in qof xanuunsan cudurkii hayay uu u gudbin karo xayawaan, ayuu yiri madaxa beerta lagu xanaaneeyo duurjoogta ee ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka oo la hadlay wakaalada wararka ee Reuters. waxa uu intaasi ku daray in uu doonayo in uu macluumaad la wadaago xarumaha cilmi baarista ee baaraya qaabka la isugu gudbiya cudurka COVID-19. naadiya walaasheed Azul, 2 shabeel oo kale oo ah nuuca loo yaqaano Amur iyo 3 libaax ayaa dhamaantooda lagu wadaa in ay iminka ka soo kabsadaan sida ay sheegeen saraakiisha beerta lagu xanaaneeyo duurjoogta. cudurka safmareenka ah ayaa markii ugu horeysay waxa isu gudbinayay bil'aadamka, balse in laga helay shabeel lagu magacaabo naadiya ayaa keenaya su'aal ah in bil'aadamku uu u gudbin karo xayawaanka.